Soomaaliya waxa uu bariyay cusub sidaan wada ognahay labada aqal ee baarlamaanka waxay meel mariyeen sharciga doorashooyinka qaranka waxa ogol u cadeeyay 170 waxa diiday 5 cod waxa ka aamusay 2 cod sidaa daraadeed sharciga sidaas u ansaxay waxaana sidoo kale saxiixa ku duugay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya sharcigaasi waa kana horteedu yaala hortiinaan ku saxiixaya caawa waxaan codsanayaa labada gudoomiye iyo laba prime minister inay garabkay soo istaagaan caawa laga bilaabo dalku doorasho aad hal ogaado inta lagu hakine waxa sidoo kale la soo dhisay guddiga wadajirka ku meel gaarka ah ee diyaarinta xeerarka dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaranka kaasoo ka kooban labada aqal ee baarlamaanka dalka waxaana kamid ah xeerarka ay soo ansixin doonaan deegaaminta kuraasta iyo sidoo kale caymida qoondada haweenka haddaba meeda qoondada dhalinyarada maxaa loogu waayay sharciyada ay ansixinayaan golaha sharci dejinta ee labada aqal ee baarlamaanka maadaama madaxda dalku markastaba ay noo sheegaan in dhalinyaradu tahay boqolkiiba 70 in ka badan dadka dalka waxaan rabaa marka dhalinyaroy dalkan hadda aan joogno xoogga uu haysto waa idinka maskaxda uu haysto waa idinka dhaqaalaha uu haysto waa idinka waxa uu ku faanayo ama cidda uu la tartamayo oo raba adduunyada inuu la tartamo waa idinka anoo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan halkan ku soo gudbinayaa raayigayga kuna salaysan qodobada soo socda qodobka koobaad waxaa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ku codsanayaa inay qoondada dhalinyarada ku daraan xeerarka sharciga doorashooyinka ee ansixinayaan qodobka labaad waxaan u soo jeedinayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka inay ku dhiirigeliyaan dhalinyarada in la dooran karo waxna ay dooran karaan say uga mid noqdaan dib u dhiska iyo horumarka qaranka qodobka saddexaad wuxuu ku socdaa axsaabta taasoo ah inay u ogolaadaan dhalinta inay ka mid noqdaan kuraasta deegaan doorasho ayagoo ku matalaya xisbiyada qodobka afraad dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa inay doortaan hogaamiye wax qabad leh ayagoo ahmiyad gaar ah siinaya dhalinyarada